nin muddo 2 sano ah iska dhigay inuu kooma ku jiro macnaha uu miir daboolan yahay si uu uga baxsado يعني محكمة معناه ما دام uu xukun ku dhici lahaa ninkan wuxuu isiri qorsho wuxuu la yimid inuu kooma isgalshado muuqaalkan waxa baa xoogaa yar waan ku sheekaysanayna nin iyo xaaskiisa oo ku noolaa Swansea Ingiriiska oo la kala yiraahdo Alan iyo Helen ayaa waxa ay sameeyeen wax oo cajiib ah waxa la yiri lamaanaha noloshooda waxay iska ahayd adiga nolol oo dhexdhexaad ah ninka waxa uu jiray markaasi 40 iyo dhowr sano xaaskiisana waxay jirtay 34 sano 35 sano meelahaas adiga xilligaas xoogaa yar adiga waxay dareemeen markaasi inay lacag la'aan wax ay jirto ninka ayaa markaasi waxa uu isku dayay fikradii waxa inuu keeno adiga si kasto ay noqoto markaasi wax kale u imaan waayeen markii dambe waxa uu ku fikiray markaasi adiga in uu farsamo kala sameeyo taasoo ah nin oday ah oo dariskoodii ahaa ayuu waxa uu bilaabay markaasi inuu maaragtay uu caawiyo oo la saaxiibo oo maaragtay ninkii ay noqotay sida uu wax uga caawinayay adiga ninkii yaa aaminay markii uu aaminayna waxay noqotay markaasi inuu gurigiisa u galo xogaa waa isku sii dheeraadeen kadibna ninkan waxa uu suurto gashay ninkii in qaybta maaliyadiisa uu u dhici karo oo ahayd markaa in uu ka sasabto bangigiisa uu kala wareego 40,000 okay marka ninka odayga ahaa marka uu dhacay ninkan ayaa ninkii waxa uu bilaabay inuu arintii ogaado waxay noqotay sheekada inay ninkan ku soo biishobato sida saaxiib ku aadeen goorma isku dambeystay adiga waxyaabahaas oo kale markii ay noqotay ayaa ninkan waxa uu isiriday isaga xaaskiisa way tashteen oo waxay yiraahdeen maxaan sameeynaa macnaha dawaana la haayay hadaba ma tagnaayo maaragtay انت aqoonsigii wax aan bedelano Brazil meelaas ma ka dhacna hadan lacagtii ma nagu filno 40,000 yani way garan waayeen markaasi wax ay sameeyeen bas ninka markaasi waxa uu la yimid qorshahaas oo ahaa garaashkii oo gurigiisa isagoo iska dhigay inuu alaab kala soo baxayo oo kale ayuun buu maaragtay albaabka intuu is hoos dhigay wuxuu iska dhigay markaasi garaashka albaabkiisa ninku soo dhacay markaa agtiin waa qaladay telefoon ay dirtay markaasay waxay tiri yani ambalaas hal isku soo baxo ninkii shil iga galay ninkii waa la qaaday isbitaalka la geeyay isbitaalka ninka marka la geeyay waxa uu yiri markaasi aniga wax ma kala garan karo madaxa ay wareerayo adiga sidii ayaa ninkii maaragtay markaasi ay noqotay in lagu seexiyo waxa la yiri markaa 10 isbuuc ayaa isbitaalkii ninkii la seexiyay dhaqaatiirta isbuucyadaas inta lagu gudu jiray marka waxbay ka baareen madaxiisa laf jabtay wax si noqday intu baa xididadii neerfii waxba adiga yani dhanka daawada marka la yiraahdo wax walba negative uu keenay marka haddana saasay daadeen ninkan waxa uu taagnaa aniga ma soo kacay sidiisu u jiifay askartii xogaa yar shakiya ku dhashay hase ahaatee yani markii ay kuwan dhaqaatiirta ay wax weydiiyaan waxay dhahayeen yani way noqon kartaa wax aqoonteena ka baxsan inay ninkan u hayaan laakiin caadi ahaan sidaan arkeen hada wax ma haya okay ninkan wuu jiifay wuu hurda intii marka taas ay socotay waxa la soo ogaaday marka ninkii odayga ahaa waayeelka ahaa lacagtii ka maqnayd inuu ninkan xaday macnaha meeshii lagu shubay magacyadii la isticmaalay wixii dhan marka la soo helay waxa la ogaaday markaasi inuu ninkani uu ahaa ninka يعني ما أردت مركزي فرقة كذا يعني وحيابه أو أنت إسبتالك وجوجي أو شكل دلنا يا ما أردت مركزي ماشي كجراليري أبين أو كلا وحين نقول إزاي إن حاسكي سأسهل جوجين أو كل يسوي هاي أيه وحالي ما أردت مركزي إن قلبتي أو كلا بكيري بيكو جرو أو ماشي صارنا أو إلا بي أو كلا أنا لقى قادن أيه صبحي وحلوس أو كعيا الله يسقو ما أردت بيكو جرين أو كلا نك بينجي مرار كقارو ما أردت مركزي وسكو حدي جري نكان طبعا كأسبوع وحي dambeeyay iyo caaskiisa marka waxa la yiri marka xaaladiisa ilaa ay ka soo laabanayso guriga ku hay okay sidii guriga ku imaadeen allahay wixii intaas ka dambeeyay xitaa yani isagoo qoortan barkin ay ugu jirto ayaa ma aragtay deesaas banaanka ay ku soo wada aadi jireen allahay yani si oo dadkana xitaa ay u arkaan ninkan xaalad uu ku sugan yahay askara soo booqanaysay adiga wax walba case-kii ku saabsan dib loo dhigay xitaa maray maxkamadda ay warqad uga timaaday oo la yiri isagoo sidiisa xitaa halkeena maxkamadda xaaskiisa maaragtay markaasi warqad qortay oo waxay tiri ninkaygii oo sidaas ah ra'iisul wasaare u qortay waliba oo ay tiri ninkaygii oo sidaas ah ayaa lagu qasbayaa in maxkamad maaragtay markaasi la saaro balay waxa la dhahay balaha laga joojiyo adiga waqtigaasi waxyaabahaas dib loo dhigaa liir okay markii dambe waxay noqotay dadkan ayagoona ka warheen marka in
kaamirad la daba dhigo iyo dad markaa way soo baxayaan markii ay soo baxaan oo kale koodii sida ay gaariga ugu wado oo kale supermarket oo kale ama meel ay galaan meel markii ay galaan dhag. The photos we were told in court showed them on family holidays using the caravan, even pictures of him on the Dodgem cars. Supermarket kale oo magaalo kale ku yaal intay tagaan oo kale iska soo adeeganayaan marka dadkii la daba dhigana de way arki karaan sida loo soo baaray mar waxa la arkay isaga supermarket iska dhex joogo had enjoyed themselves to the full, causing distress to all the people. markalena xitaa sidoo kale kaamiradu waxay soo qabatay adiga banaanka oo kale ayagoo aadayaan gaari oo kale intay alaab ka buuxsadaan inta magaalada ayaga laga yaqaan ay ka baxayaan iyo qaybta hore dhan waxa gaariga markaas ay kaxeenayso xaaskiisa markii dambena de asaa la wareegayay bade qaybahaasi ama waxyaabahaasi oo dhana markaasi adiga la soo helay oo markii dambe de waa la wacay waxa la yiri adiga ay ka maxaa leedahay Allah markaas wuxuu yiri isaga wali wuu isdhigay aniga kooman ku jira marka waxa la caadi iska dhigo faasanahay ma aragtay de ma sidaada lagu xukumo misoo soo kacaysa marka soo kacay wuxuu yiri ay malay qabtay maxaa dal lagu sameeynaa waa la xukmiyay oo waxa lagu xukumay markaasi 14 bilood يعني وقت ساسو بدن ما ahaan hal sano iyo 2 bilood ayaa lagu xukumay oo xariga sidoo kale xaaskiisana waxa lagu xukumay 10 bilood maadaama aydan ay qorshaha wax kala waday kulli lacagta iyo inka badan markaasi si ganax ahaan looga qaadaya sheekadoodina markaasi meesha aan ku soo gabagabeynay anagoo soo koobayno dhamaantiin waa maasantiin inta muuqaalkan aan daawateen insha Allah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabad.